deegaanka Janaale oo hoostaga degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa saacadihii la soo dhaafay isla dhexmarayay in halkaasi ay faarijiyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab oo gacanta ku hayay ama gacantaba ku hayo maamulka deegaankaasi waxaana jirta in sidoo kale maamulka degmada iyo kan gobolkaba ay qorsheenayaan iyagoo kaashanaya ciidamada dawladda inay halkaasi ay weerar ku qaadaan oo ay la wareegaan haddaba waxaa ka jira in Al-Shabaab ay deegaankaasi iskaga baxeen iyo duulaanka ku wajahan deegaanka Janaale ayaa waxaan wax ka weydiiyay goor dhaweed gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada Marka Cabdullaahi Cali Nuur Shaacir xaalada guud walaalo aad bay u wanaagsan tahay alxamdulillaah wax dhibaato kama jiro meeshaan hadda waxa ka socdo guruf colaadeed iyo saansaan sidii ay dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed sidii ay kula wareegi lahaayeen deegaanka Janaale hoos yimaado degmada Marka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybihiis kala duwan ayaa ku sugan madaxdii waxaana hadda loo diyaar garoobay sidii lagula wareegi lahaay Janaale loogana xoray lahaay qolooyinka nabadiidka ah ee Al-Shabaab ummadda dhibaatayeen muddo badan ee meeshaas ku haystay marka sidaasaan hadda howlgallada ay ku socdaan wixii tafaasiil ahna waa waxaa jira warar sheegaya in Al-Shabaab ay iskaga baxeen deegaanka marka akhbaartaas idinka mid soo gaartay waa horta deegaanka markii la tago Janaale la tago qaybihiisa badan amnigiisa la xaqiijiyo ayaa laga warrama karaa way ka baxeen iyo kama bixin dadka ay warbixintaas soo gudbahay waxa laga yaabaa dad ay ayaga soo adeegsadeen inay yihiin ay deeslahaayeen dadka way ka baxeen ciidamada dawladda ayagoo habacsan inay soo galaan sidaas inay dhibaato iyo khasaare ku gaarsiiyaan taasna ciidamada way ka foojiyeen dadka deegaankana dadka ayaga ka soo warramaayo maahane dad baa meesha joogo oo xog dawladda ka soo siinaayo waana ognahay inay beeraha muuska iyo geedaha libaayada iyo cambiyaasha ay ku hoos jiraan ilaa ma meesha la tago la xaqiijiyo isha la saaro lagu dul wareego laisma dhihi karo way ka baxeen meel kale ay xeelaysaa lama dhihi karo marka adinka gulufka dagaalada ku qaadaysiin deegaanka ma mid waayadan soo taagnaayo sababtaas mid la xiriirta ay shabaab u yiraahdeen waa ka baxnay meesha waa nasiib walaalkay wad maasan tahay su'aasha ay weydiisay horta dadkan deegaankan degan iyo shabaabka mar sidoodaba olay ahaayeen oo mar hore ay dagaalameen oo heshiis dhaxmaray oo nabadeed ma aysan jirin marka haddana waxaa meesha yimid dawladii federaalka ee Soomaaliya ee maamulkan iyo dadka shacabka deegaankan degmo ee mas'uulkeeda meesha timid waana xaqiiqo in macnaha ninkii shalay adiga ka awood roonaaye oo shalay adiga ku gumaanay maanta hadii dawladdaadi ay ku timid ilaa meesha laba qabiil maana urur jabhad waaye in lala dagaalamayo waa dareemi kartaa nin beertiisii iyo gurigiisii iyo hantidiisii ka soo tagay deegaanada dawladda ay joogto magan waxa haddana deegaankiisa la xoreynayo hadii la yiri waa dareemi kartaa inay ciidamada u horboodayo oo dagaalada u horseedayo waa taas waa dareemi kartaa waa ninka saan garan karo hadda maxay idin hor taagan marka inaad deegaanka inta weerartaan aad qabsataan haddii shabaab aysan wali ka bixin waxa hadda anagu naga hortaago mara laakiin awaamiir iyo ciidan iyo qorsho dagaalada meesha yaalla ma ahan in la iska ordo meesha la tago ma ahan in xabad baybayna siiyana ma ahan meesha waxay ciidamadaas ay meesha ku yimaadeen waa ciidamo dawladeed taliskooda amarkii ay taliskooda ka soo baxo kaliya ay ku dhaqaaqayeen ayna ku sameynayeen ma ahan in la iska ordo ama ma ahan inaan ka hor dhacno barnaamij dawladda u yaallo amba qorshe ay dawladda leedahay ee laamaha amniga ay leeyihiin marka ma weerarka ma ciidamada dawladda oo haatan aad sheegtay inay soo gaareen oo keli ah ayaa ka qayb qaadanaya maskuwa gobolka iyo degmadan oo ku jiraan kuwa degmada kuwan gobolka dadka meesha loo xoreynayo waa kuwan gobolka joogo degmada jooga way ka mid yihiin ciidamada dawladda ay ka mid yihiin hadday ahaan lahaayeen niisa hadday ahaan lahaayeen militariga xoogga dalka Soomaaliyeed meesha ma jiro wax maleeshii qabiil beeleed la yiraahdo ma jiro waxa jooga waa ciidamada dawladeed meesha lagu amray taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku amray inay taga doonaan hadii Ilaahay yiraahdo balse mar walba waxaan lagu eedeeyaa idinka ka maamul ahaan in deegaanadani laga qabto aad hore uga soo baxdaan marka
iyada maxay uga duunaan doontaa deegaankan janaale haddii xataa ayba dhacdo inaad gacanta ku dhigtaan? maasha allah, kelmad wanaagsan aad horta ii sheegtay. ciidamada oo deegaankan joogo, maxaa yeelay ayagoo dawlad la-aan oo dawladda ay ka maqan tahay ay hortaagnaayeen al-shabaabka ayaga ay celinayeen. niman ka soo baxo ma ahan meesha loo qabto ka soo baxo. gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose Cabdullaahi Cali Nuur Shaacir ayuu kaasi ahaa oo iga warbixinayay duulaanka ay ku qaadayaan deegaanka Janaale oo ay dagaalamayaasha al-shabaab ay ku sugan yihiin si ay halkaasi ula wareegaan.